العالمين قدوميها gobolka banaadir ahna duqa magaalada gudoomiyaasha hore baarlamaanka ra'iisul wasaare hore guddiga doorashooyinka qaranka madaxa bannaan ururada siyaasadda dadka kale oo munaasabadan qiimaha badan ka soo qayb galay oo sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan bogaadinayaa guddiga doorashooyinka qaranka guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maamulkiisa ku-xigeenka duqa magaalada waan bogaadinayaa shaqadan quruxda badan oo waxtarka leh oo jahada cusub oo iyo nolosha cusub inoo jahaynaysa waqtiga yar inta ay ka soo qabteen iyagoo wada jira aada iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan runtii si gaara usii bogaadinayaa duqa magaalada oo intii yarayda uu joogay si xawli leh shaqadaa ku gutay aada iyo aad baan u bogaadinayaa kartidiisuna muujiyey waxaan bogaadinayaa ururada siyaasadda oo aaminay dalku inuu halkaa aaday oo ay ugu horeeyaan guddoomiyaashii golaha shacabka ay ugu horeeyaan aada iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan xaqiijinayaa in dhanka dowladda lagaga kalsoonaado in doorashada madaxa bannaan aan marnaba wax ku danaysiya iyo wax gacangelina iyo wax dowladdu ay gooni kaga faa'iidaysato inuusan dhici doonin taa waa idin xaqiijinayna waxaan kaloo iyadana tilmaamayaa siyaasiyiinta hanka soomaaliya kale oo weli gadaal isu haya dalku halkaasuu aaday dadka ha lagu kalsoonaado dadkana waxa laga doonto meel ka sokaysa cid wax ka helaysaa ma jirto waa la guuray intaan la guurin yaa lagaa guurin siyaasiyo haddaad dadka wax ka doonaysa waxa soo baxaya oo dadka hor imaanaya oo muddo yar ka bacdi xisbiyada siyaasadda noqonaya waa xubnaha maanta halkaa fadhiya oo aaminay inay muxuu ahaa aaminay in dalku halkaa aado himiladaas iyo higsigaas quruxda badan oo dalkeennu baahida u qabo dalkeenna inaan gaarsiinaa waa muhiim dowladdan maanta jidha waxaa u faa'iida hadday xil iyo xukunba weydo inay dalka halkaa gaarsiiso oo u jahayso ayaa sharaf iyo karaamo u ah marka dee ninka halkaa dalka u dhigayna abaalkiisa inuu helo ummadda xaq buu ugu leeyahy marka haddii xukun aan la helinna waa credit sharfan iyo qofka soomaaliga ah waxa uu ku seexan karo oo muxuu ahaa masaalixa wey guddoomiye mungaab waa la soo magacaabay shaksiyaad baa soo magacaabay madaxweyne halkaa wasaaradda la soo jeediyo hadda waa maqlaysaan idinku codka idinka doonanay idinku idin baryayey inuu idin shukaansado oo cod idinka doonto isagana sharaf bay u tahay intaa waa kasii weynaanaya idinkana sharaf bay idiin tahayoo idinkaa doortay berrina waa la xisaabtamaysaan oo nimaydaan doorateen ula xisaabtamaysaan hadda waa adagta laakiin nimaad doorateen xisaab baa gelinaysaan isaguna intaasuu kasii badnaanaya magaalada qurxin iyo hagaajin iyo haddii ilaahay idankeeda le dadkii baa kuu jeedu noqonaya marka jahadaasaynu aadnay runtii sida ra-iisul wasaare khadar uu sheegay waa soo marnay xarumaha waa soo marnay weerhawsyada waa soo marnay tiimamka waa soo marnay ididiilo iyo ficnaan baa na gashay awalna waa ka warqabnay wax qurux badan baa socda wax qurux badan baa socda waxaan ku kalsoona in halkaas aynu aadnay aynu xaqiijinayno runtiina shaqo tiro badan
tiro badan baa la qabtay miyaa laga abaalka dhici karaa oo qof iyo laba hor istaagi karaan 1 milyan oo banaadir iska diiwaangelisay maya ma dhici kadho cid beenin ka dhaama jidho shahada ay aadeen baa la aadaya qofkii dabagelaya waa isaga qofkii dhexda ka gelayana waa isaga qofkii hore ka soconaya waa sida tareenkaas waa dhaqaaqay cidba meeshay ka qabsatay wey kii dabada ka qabsanaya kii iska fadhiyaya hadda ma aqaan waaga dambe oo dib dambe inuu meel waa ka geli karaa beelata laakiin kale hadda waa socda kale waa socda marka runtii intii shaqada qabatayna waa bogaadinayaa annagana ka dowlad ahaan afkii dowladdan oo maanta ku hadlaya nagu kalsoonaada farafarayn la-aan waxba farafarayn mayno